waxaan rabaa inaan la wadaago dhammaan muslimiintu meel kastoo ay joogaan farxadda bisha barakaysan ee ayna soo haraysay ee aynu caawa joogno habeenkii ugu horeeyay ee bisha barakaysan ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayna waafajiyo ilaahayna ha inoo aqbalo dad badan bay ku soo beegantay iyagoo xanuunsan oo jiran ilaahay ha caafiyo caafimaad degdeg Allah siiyo dad badanna ayagoo qaflad ku sugan ayay bishii soo haraysay waa inaan ka baraarugnaa oo ka istaagnaa qafladda iyo halmaanka bishaan aan uga sugannahay waa shahar cadiim ah oo ilaahay u barakeeyay ilaahay quraankiisa uu ku sheegay habeenkii leelatul qadriga ahaana uu ku dhex jiro oo kun habeen ka khayr badan qofkii khayrkeeda laga xarimana khayr oo dhan laga xarimay waa bishii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam habeenka ugu horeeya marka la gaaro shayaadiinta ayaa la katiinadeeyaa jannada irdaheeda ayaa la furaa albaabada naarta ayaa la xiraa ilaahay xaqiisa ayaa laga naadiyaa qofkii khayr doonayo soo qaabil qofkii shar doonayo gaabso oo ka joog habeen kastana waxaa ku sugan bishaan utaqaa'u min an-naar kuwa naarta laga xoreeyo ayaa ku sugan ilaahay ha inoogu daro subxaanahu wa ta'ala maadaama khayrkaas uu inoo bilowday waa inaynu siinaa juhdi iyo cinaayo gaar ah iyo didaal dheeraad ah soonkeeda hadday tahay bisha soonka aan soomayno iyo hadday tahay qiyaamka iyo taraawiixda qofku siday ugu suurto gasho ayuuna u tukanayaa hadduu masjid ay noqoto iyo hadday noqoto gurigiisa inuu ku tukado intaba waa inuusan dayicin khayrka isaga ah sidoo kale qofku waa inuu ku dadaalaa itcaamu tacaam dadka inuu quudiyo oo masaakiinta uu quudiyo waa inuu qofku ku dadaalaa oo qaraabadiisa iyo dariska iyo saaxiibada kuwooda fuqarada oo dhibaataysan si gooni ah waa inuu xil iskaga saaraa kadalika waxa weeyaan qofka sooman asagana waa in lagu dadaalaa afurintiisa oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajri qof sooman qofkii afuriya wuxuu leeyahay ajarkiisa oo kale ayuu leeyahay khayrkaas weyn oo ina soo hareeyay oo aynu caawi awwalu layla min ramadaan aynu joogno ayaa waxa weeyaan farxadda uu leeyahay ayaan jeclahay inaan la qaybsado muslimiintu meel walba ay joogaan ilaahayna ha inoogu aqbalo caafimaadna ilaahay ha inoogu siiyo cudurka adduunka saamaynta weyn ku yeeshana ilaahay waxaan ka baryaynaa fadliga iyo raxmadiisa iyo waxa weeyaan awoodiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu inooga qaado ilaahayna ina caafiyo bishaasna ay noo noqoto bishii caafimaadka aynu ku dhamaysanay ilaahayna ina dhaafiyo subxaanahu wa ta'ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in